si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan ee Radio Kulmiye fadlan subscribe saar janalkan waxaa gablamakii gaabiye diib u soo gurtay geediga ka haraa xaggaa loo guura awal war waxaan maqli jiray la guuree la geedi galaye xaggee loo guuray warwar ma haysida waxaa la yidhi maaris baaba loo guurayo geedi loo yahaye ninka gegidaysii taaganoo u gaabis baa tahay war kala guurka aad sheegaysaan waa maxay isku guur maa dhahdiin war isku guur waa isku dhimashe anna habaari nin yahow war go'aanka shalay ka soo baxay golaha wadatashiga haddii laga dhabeeyo dhaqsaa loo kala guurayaa oo doorashada lagu kala baxayaa war somalilanoo mar hore maamul kala guurkiinna ka guurtay waxay tidhi kala guurki maahe kala guurasho weeye garo aryaa gaboosow dadka kala guurka qaladka u fahmay waa isbeddel maamule soomaalidaa kala guuree lama dhihine waxaa la yidhi xaggee geedi loo yahay aasoo yidhi geedaha caleenta leh war waxaa la yidhi gaadiid ninkii heli karaa guura weligiise god inuu ku furo waa ka baqi geediguu raray war ilaahay u naxariistay abwaangaariye wuxuu yidhi hadday awr kala guurto la arkaa mar kaleeto inay ood ku kulmaane hadduu uur kala guuro soo amuur culus maaha war waxaa kaloo la yidhi kala guurkii weeyo dadaalba la galayaa war weli kala leedhay geber ii goroob toona miingefa guurka guur leey ere waraawowi la gub kudka guur qanjo u guur waan ka soo daalle waxaa geedi loo yahay geedaha caleenta leh aryaadhaha doorashadan la muddeeyo minii laga dhabeeyoy ku dhacdo rag waaweyn uun waa la gelbi doonaa waana tii la yidhi gabayga yeeraaya guuxaa baxaaya ii gurbaanka ow geedi shaambooba lagu guurihaaye warwalaweynay intaan garanayna sheekadiina way dhaaftee geedigu markuu dego aynoo ahaato aga war ma goosashadii baad ka noqoteen la guuray la geedi galaye yaa dheegi jari warannu waxaan dhihi lahaa gega laga hayaamay oo abaar looga kala guuray geelina ka sii raran yahaan dala ka goobnaa galxareed ahaan taagannahay oonna kuma goyno go'doon baan siniin ugu jirnaa kooxdan teergaara aryaadhaha abwaangadaalna hadda ka hor wuxuu yidhi garyaqaanno diinliyo arrin guurti loo maray in dheergarata loo diray waxaa laga goleystaa inay guulla hoyatee sharci gebidhacdiidiyo guddoon wacan cadaaliyo gar allow yaqaannaa geesigii shaqaystana lama garab wegliiloo godob lagama raadshiyo xaq waa loo garaabaa war haddee geesiga ama sayid axmed madoobe ooga jeedaa war amow jenaraal madaxweyne farmaajo la jeeda cidu kama geysane warna miyaa weli leeray guurii gubeernuu gaadidjayna baaburu gagaabsidi gaadidjay gurbileere adduunya ayka dabagaddoontay lankii garabjayku guuray go'aankii gaayarow kasaadi warmadeeyow gabagaan ma madaxweyne lafta garanaad ku ammaanta xibnayow guntadaye xilka garabka saarow aan maqli jira war dad xil garabka saaray sidaan uma dhaqmaane waxaa lala yaabay labada xafiisee dalka ugu sarreeyey soomaalidana khilaaf kuma cusbo weligeedba way taqaanee toodu way dhaaftoo qas bay noqotaa la yidhi aryaadhaha waxaa lama fiirsan karee masaajidka cayaarta ka daayaxaa loo dhihi waayey war cabdullow waana abuurisa ka horraysaa la yidhi war cabdullow masaajidan kala wareegato madaxtooyada gaasi ka dhaafa mayn ari waayeen war inaabba odayaashu hadday kala xishoon waayeen odayaal wax kala dhaha ma loo waayey war odayaashu mar hore edeeg joqadimideena meelka dhowta siin sheegay nimanka hal shiidoyoy war wax garad lama weyne horaa waxaa loo yidhi af wax cuna xisho war qof la gatay wax garad maahane warka hayga dhex gelinninee waa la iskhilaafi jiray mana cusba ra'iisul wasaare iyo madaxweyne isqabta laakiin iyagoo dirirsan haddana xurmo iyo xaqdhawr baa jiray xad aan la dhaafinna way lahaayeen laakiin hadda wixii la qarin jiray waa la qaawiyey labadoodayna waa ogeydeen in qoryo laysku qaatay oo madaxtooyada dhufays laga galay shirkii shalayna qodobadiisa waxaa ka mid ahaa si dadban baa loo sheegay amisom ha la kala dhex dhigo marka madaxweyne iyo ra'iisul wasaare shisheeye kala ilaalinaayo taariikhda soomaalida waa markii ugu horraysay warawowila gubrag wuu diriri jiray taa waxaa kaloo ka daran madaxweyne iyo ra'iisul wasaare caytamahayo oo facebookga isugu jawaabahayo oo kooxo kala taageersan oo lacag siiyeen midba midka kala caayahayo wax la arkay oo la maqlay ma aha waana markii u horraysay taariikhda soomaalida war bilaashaad u neefneefsahe maahine wax badan oo markii ugu horreeya ayaa la arkay isbandhaafka hareeyey madaxdii waddankeenna iyo mushkiladda taalla dalkeenna meel kastoo laga eego ar mas-uuliyad darra dhaafsha aryaadhaha idinkoon xabad isdaalin xaaladdu waxay maraysaa ha laydin yidhi waa kala guurkii
guurkii waa kala guurkii war wallaweynay hadda doorashada loo ballamay wala hirgelinaya mise waahadii hore ku dhammaanaysaa warqabkii soomaalidan soo celini amisom hana kala ilaalisay ku dhammaatay qabtu markay dhacdaan maqli jiray goormay wax fiican naqatawal warnimayow hangoolkii galmudug oo heshiiska doorashada ka hadlay wuxuu yidhi doorashadan heshiiskeeda aan lagu heshiinaynin mar haddii heshiiskeedii hore lagu heshiin waayey madaxdii heshiisana wixii lagu heshiisiiyey haba lagu heshiiye inuu fulo heshiiskoodu ku heshiis ahayn oo barkood galay heshiis leexsan amay kala heshiiyeen rag waa kii heshiin jiraye waa inuu heshiis kala dhaco dib u heshiiyaane qodobada heshiiskuna noqdaan qaran heshiiskiise been lagu heshiiyana wallaan lagu heshiinayne run ha lagu heshiiyo shacbiga wada heshiisiiya warangoolka galmudug muxuu ugu dari waayey gabaygiisii weynaa ee ahaa been lagu qadeeyaan walleen lagu cashaynayn warangoolka galmudug wuxuu kaloo yidhi waxaadnaan or iyo baanisiyo boota ugu daalin ballanqaadyadiinnii xumaan laysku soo baraye berrixoo ku soo baxa shalaad been ku timideen aga warkaa waa qarindubaysa maxaa loo soo xidhi waaye war adduunya aayatiin ma lehe arrinkuna sow hadda maraho ilama fiicnee waxaa la yidhi cumrigu waa gaaban yahay dunidu waa galab carraaw carrada waxa iskale ibliis colbowna la yahay heshiis samaantuna wow caburis casiiskina uumayow adaan kuu cabannayo khayrkaa lama caabudee caquubada naga dulqaad aamiin madaxweyne maa la doortay war madaxda shalay go'aammada soo saaray waxaan weyddiin lahaa dhaxaa bulshada dhaar beena iyo dhab waraan ahayn laga dhaadhacsheeye dhagartii miya mase dhaqangal baa jira aamiin war wallaweynay ma jeelashiinaa buuxsamay waa idinkana madaxda u gafaye war qowdhayarow annagu dadka ma caburno qofkii cirka eegan xaggayna dembiile ka maahan haddaa waxaad la degilaadihiin bilaa muuse bixi baa tihiin war nimanduunkaas ka wedlankii walkagobodaw eedaanka baahnaani muuse bixi bahaado warmaayow wixii laascaanood lagaga soo tilxilay baad weli wataa waa kala gurki waa kala gurki waa kala gurki war horta soomaalida kalsoonida ku yaraatay doorashadan waa dhacaysaa guddoomiyihii guddiga doorashooyinka xilka laga qaadayna beddelkiisii degdegaa loo dooranayaa horena hawsha way ka bilaabanaysaa la yidhi golaha shacabkana waa u tihiin qaar badan waa joogaan inta hartana muddada la cayamay gudaheeda lagu dhammaystirayaa marka nimankiina maalin kasta geedkan walaaca la soo fadhiista qalbigiina khayr u sheega ummaddana khayr gaarsiiya xildhibaan cabdikuusow lacalla bikhayr ajooylo ooyow oriyow eed shay dhiibadi war haddii la heshiiye xataa weli ajaylo ma codaynaya ojoylo intii adyay dhiibidaaw aranta sahme eh war ajoylo miyaan weli la soo xidhin war ajoylo waa ergegii intii aannu maqlaynay ugu eedda badnaa wareewo wiilagub ma madaxda shidaysuu ka mid ahaa ajoyle warnimayow nin waddani oo nabad nolol ka tirsan ayaa ii soo diray qoraal uu sheegay in qof qaran dumisa uu qoray waxaana uu leeyahay waxaa kornayl abiy axmed la kulmay labada aktifitist ee twitterka caanka ka ah una ololeeya farmaajo ee faarax macalin iyo barofesor cabdiwahaab labadan nin oo kenya deggan aadna ugu ololeeya in xoog iyo qori caaraddii uu farmaajo xukunka ku sii haayo waxay abiy axmed ka codsadeen in taageero militari uu dowladda soomaaliya siiyo waxaana kulanka fududeeyaa la yidhi madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafa cagjar oo darihiisa ka dhex arkay taageeridda isbahaysiga saddexgeesoodka ah war qarandumis maaha ninka warkaan sheegaye xoogagga waddaniyiinta qaybta kenya inay abiy axmed la kulmeen waa run codsigoodana waxaa ka mid ahaa baa la yidhi adiguna na taageer afawarqina nagala hadal aga war afawarqina ma ciidan buu u soo diri lahaa war kismaayaa laga bilaabayaa ama agahdhe ama eegadhe inaabow taas ilaahay baa wax kaa odhani war laxu waxay nafteeda u weyday naysheeda uma gashee abiy asigay kacadaya maxuu u tari karaa war big baraadarka xantiisu ma bannaana war halgudhagga cusub ee kaambeynka waxaa la yidhaa imaaraad waa cadowgeenna qatar waa gacalkeenna kenya waa cadowgeenna etoobiya waa gacalkeenna jabuuti waa cadowgeenna elitareeya waa gacalkeenna war sheekadaasi ma qaybtii labaad ee aan kuwaale hayo dhehba mise waa war yuutuubar war jabuuti walaalaheen bay ahayde goormay elitariya nooga dhowaatay war wallaweynay etoobiya soomaalidu cadow soo jireenay u taqaanaaye goormay nacabkiina noqotay wareedha ismaqli mayside ma taageerada kula fogaatay warnimayo imaaraadka iyo qatar laba waddan oo khaliijka ku yaallo carbeed waaye shimayna kala xigsadeen war gobolka laamu ee dalka kenya waxa maalin kasta weeraraha guryaha gubaya ma kenyaati kalaa war arsenal kenyaati iyo waayaan fila war wallaweynay dadka inaan soqon afka isu keen gelin war burmadow wuxuu noo sheegay inaad madax u tihiin war waa aasaasnayuu ku yidhi war waa dawlad labaad buu yidhi horta laamu ma kismaayey ku taallaa ma amiirkaysa lagu tahay war istubidnuhu waxay tahaa la yidhi adigoo runtii og una jeeda inaad been aaminto war aduma odayaashii talyaanigaad ka dambaysaa ayagaa istubud dhihi jire war anigu waxaan dhihi lahaa cid laa qorrax noogu dhacay doon baa nala caariso
yidhaahdo caqligu waa diidan yahay sida uu caynkaynu yahay habeen walba meel habaas badan iyo mahoodanu yeeshay heeladane habeen walba meel habaas badan iyo maheelanu yeeshay war wadwaalantiine waa kala guurki waxaa gablamakii gaabiye diib u soo gurtay geedigaa ka haraa